وحالات خطرتيدا wadata sababtoo ah bini'aadamka oo dhan waa mid khasaaray oo guul daraysay marka laga reebo kuwa sifooyinkan leh. Rabbi subhanahu wa ta'ala suuratul casri oo ay ku tilmaameen culimada qaybtood haddii kaligeed qur'aanka la soo dejin lahaa macnaha ay xambaarsan tahay darteed waa ay ku filaan lahayd basharka. Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay wal casri casarkan ku dhaartay casarku maalinta gelinkeeda damba mise waa casrigii nabigu noolaa labadaba waa lagu macneeyay. إن الإنسان إنسان كي بني آدم كو لفي خسر خسارة يكون حسوجا يهي إلا مركا لجربا كو سفوين كان له الذين آمنوا كو إيمان كلجها لي وإيمان كودر دم يسترمي وعملوا الصالحات فرسوا بالليمي ووحي إلهي أمري سيدي اللي جرب يسمي وتواصوا بالحق حق يدعوض يا خير كي صدر دارمي وتواصوا بالصبر كدبنا إنه كل صبران يصدر دارمي أفرت السفوين كاله كلية يا بدبادية sababtoo badbaadadaas la badbaadaya waxa weeye adduunka qofku nicmo kasto ku haysto iyo dhibaato kasto ku jiro waa faani oo ay dhamaanaysaa laakiin meesha lagu badbaadayo ama lagu khasaarayo waa aakhiro halkaas ayaana waxa weeye macnaha khasaaraha ee dhabta ahi uu yaala Rabbi subhanahu wa ta'ala waxa uu aayad kale qur'aan oo ku leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut naf walba waxay dhandhamin geeri wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah wixii aad shaqaysateen ayaa qiyaamaha leedin oofinaya faman zuhziha 'ani an-nar qofki maalinta naar laga dhufto naar ka badbaada oo udkhila al-jannata janna la galiya faqad faaz kaasun baa liibaanay wa mal hayatu ad-dunya illa mataa'ul ghurur nolosha adduunyo miyay tahay la dhalanteed mooyaane haddaba miisaanka badbaadadu waa inaad aakhiro badbaadid oo mu'min noqotid miisaanka khasaaruhuna waa inaad aakhiro cadaab gashid ilaahay baa ka magan galay aad ma san tahay muuqaalkan la exercise asxaabada u gaarsiina share gare si aan ajarka u qaybsano inaan soo furo gare si muuqaalo noocan oo kale ah mar walba aad ula socotid bishaaro loogu bishaareynaya dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada Qur'aanka oo hab tajwiid loo barayo aqoonta barashada farteena Soomaaliga ee dhaqanka iyo in waliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha aqoonta ku tacalluqa sabab hadii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550 aad baa u mahadsantahay